leedahay gabarba waxay leedahay waxaan iska kari lahay daawashada aflaamta khaasatan aflaamta xun ee jinsiga ah marka ma jiraan talooyin aan iskaga goon karo cudurkaas su'aasha labaad ee qaybtaas waxay leedahay iyadana waxaa soo batay waayahan dambe applicationada telefoonada ku jira oo laga ciyaaro waxa la dhihi jiray laadhuuda iyo gameka marka aad baa loogu mashquulaa qaarkoodana lacaga iyo wax baa maaragtay laga kala faa'iidaa marka diinta maxay ka qabtaa arrimahaas ayagana بسم الله الرحمن الرحيم filimada xunxunka ah daawashadoodu ma banaana sababtu waxa weeye ruuxa qalbigiisay dilayaan markaba qalbiga ayay wasakhaynayaan wixii qalbiga wasakhaynayana diintu ma ogola laanna qalbigu waa meesha bini aadamka jirhkiisa xarunta u ah waa meesha nebigu ku tilmaamay hadduu hagaago ruuxu waa hagaagay hadduu qalbigu hallaabana ruuxu waa hallaabay filimadani marka xunxunka ah daawashadoodu waa fallaadho sun ah oo qalbigaaga ku dhacaya wey waa wasakh iyo daxal qalbigaaga gaadhaysa iimaankaanana nusqaaminaysa ruuxa haddii uu barto inuu iska gooyo u baahan yahay see buu isaga goyn karaa oo su-aasha ah jawaabtu waxa weeyaan mujaahadaad u baahanta inaad naftaada la gasho dagaal adag waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala ruuxu hadduu juhdi iyo dadaal adag la yimaado wax walba waa gaadhi karaa wuxuu bartayna wuu iska goyn karaa wuxuusan baranina waa iska celin karaa laakiin waxaad u baahan tahay inaad juhdi adag la timaado dagaal adag inaad naftaada la gasho waana dagaalka nabigeenu tilmaamuu yidhi sal alay wasalam almujaahidu man jaahada nafsahu fi llah mujaahid waxaa la yidhaahdaa ruuxa naftiisa ilaahay dartii ula jihaada haddaadan naftaada ka celinin oodan ka xakamaynin waxay rabto naar baad geli sida ilahay qur-aanka kariimka inoogu sheegay ama man taqaa wa aatara alxayaata addunya faina aljaxiima hiya alma'wa ruuxii qooqa oo adduunyo doorta oo naftiisa waxay rabta u fasaxaay naar buu galeeyahay qodobka labaad eed isaga goyn karta wuxuu yahay in xilligii aada baratay inaad daawato aada isbarto camal kale inaad gasho waktigii daawashadiisa aada baratay inaad isku mashquuliso wax kale ood shaqo kale gasho ama hawlaad gacanta ka qabanayso ha noqoto ama waxaad kororsanaysa faa'iide ha noqoto ama qur-aan akhrisanaysa ha noqoto waktigii shaydaanku kula bartay inaad isku daydo inaad camal kale gasho waxaa kaleetood samaynaysaa ilaahay baad magangelyo weydiisan ilahay baad kaashanaysa waxa shaydaan baa wata ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi waima yanzaqannaka min ashayطaani nasqun fastacid biاllah ilaahay magan gal inaad akhrisato adkaarta habeenkii markaad seexanayso subaxdii markaad soo toosto galabtii markaad salaadaha gadaashooda inaad xirsi xidhato ilaahayna aada u barido inuu waxankaas ilaahay qalbigaaga ka madoobeeyo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka leexiyo dadaal badanna la timaado aada ismashquuliso inta badan dadka waxaa keenaya inay filmada iyo qashinka bartaan firaaqa markay kugu soo baxdood firaaqowdo naftu waxbay raadin laakiin haddaad waktigaaga mashquuliso naftu xilli ay wax raagsato maba haysaba waktigeeda inay ku ciyaarto ma haysato saas daraaddeed tilaabooyinkaas inaad qaadiyo wixii la mida ilaahayna barido tabaaraka wa tacaala adiga iyo inta kula midka inagoo dhammaanteenba inagoo idilba ilaahay tabaaraka wa tacala khayrkaa inoogu kaalmeeyo wixii macaasina allah inaga xifdiyo waxaa la mida su-aasha laba arrinta ku saabsantahay geemka la ciyaaro geemamka iyo ciyaaraha la ciyaaro ee aan jidhka waxba ku taraynin inta badan maskaxda
iyo indhaha dilaya waqtigana luminaya wax faa'iiday soo kordhinayaan ayna jirin maanta haddaad muxuu ahay telefoonka ama computerka intaad hor fadhido unaad ciyaar ku jirtaay indhihii ku diraan dire oo madaxii ku xanuun oo daashay oo aad rafaadsan baad ka dulkacday lacag maadan helin dhaqaale kuma soo gelin daashay jidhkaaga xataa jimicsi ma helin haddaad xataa intaad kor fadhido waxoogaa aad yaro ordi lahayd waxoogaa jidhkaagaaba jimicsi heli lahaaba oo muxuu ahay waa nooc caafimaad laakiin tani waa nothing wax macnaa male wax faa'iidaana male sidaas daraaddeed baa diinteennu lahwiga iyo macno la'aanta ay tiri maya marmarka qaarkood ruuxu hadduu yaro cajisoo kaleeto wax waxaa jira lagu cajisbaxo nafcina leh baa haddana jira marka waa kuu nabigeenu lehy sal alla alay wasalam min xusni islaami ilmar'i tarku maa laa yacniih ruuxa islaamnimo wanaaggiisa waxaa ka mid ah wixii aan faa'iido lahayn inuu isaga tago waxa waktigaaga luminaya inaad isaga tagto waxay ku tusi in islaamnimadaadu wanaagsanta in iimaankaagu fiican ruux fiican inaad marka waxyaalaha noocaas oo kale ah ha laga doorto in ruuxu ku mashquulo wax nafci leh adduunkiisa anfaxay aakhiradiisa anfaxay ruuxa muslimkaana sidiisaba waktigiisu waa wakti uu nasanayo iyo wakti uu cibaadaysanayo iyo wakti uu adduunkiisa ka xamaalanayo waa laakiin wakti uu ku ciyaaro isqaafiyo madalaba ruuxa muslimka waktigiisu kulli waa program garaysan yahay wax nafci leh buu ku jiraa marka ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna xifdiyo jazakum allahu khayran